بسم الله الرحمن الرحيم معاميشنا شرفت له كحرا شركة ضل ريل استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قعمة فرن كسو دوادا قلبي فرن كسو دوادا أديك فن أو إذن رالي قليا هذا ولا ليال سيدان نوغا براتين با وحا مانتا مركالة إذن سو قدبينينا قوري إيبا walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal soo dhawaada waxaa iib guri dhisan oo maasha Allah waa gurigan hadda ay kaamiradu hayso waa guri si fiican u dhisan meel aad iyo aad u fiican oo istiraatiiji ahna ku yaala xaafadda uu ku yaala waa aragtaan guryahaas dabaqyada ayaa ka dhisan dhinaca fiirisa waxaa ku muuqanayo guri dabaq waxaa dhihi karnaa meesha uu ku yaala waxaa ku badan guryaha dabaqyada marka walaalayaal soo dhawaada guriga iibka waa kana wuxuu leeyahay albaabkaas yarka waa gurigan sarta ee idin muuqda walaalayaal gurigan iibka waxa uu ku yaalaa meel istiraatiiji laamiga aad ayuu ugu dhow yahay waana magaalada Muqdisho dhexdeeda waxaa dhihi karnaa degmo kamid degmooyinka ku yaalo bartamaha magaalada Muqdisho waa degmada Shibis walaalayaal soo dhawaada waxaan gudo galayaa xogta gurigan iibka oo dhameystiran insha Allah tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo gurigan iibka waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Shibis oo kamid degmooyinka qadiimka ee magaalada Muqdisho degmo aad u shidan walaalayaal degmada Shibis waxa uu uga sii yaalaa xaafadda Afarta Jardiino ama Jardiinka hadba sida u taqaanid si gaar isgoyska Afarta Jardiino ayuu aad ugu dhow yahay isgoyska Afarta Jardiino sida la socotaan wuxuu kala baraa degmooyin dhowr waa Yaaqshiid Boondheere iyo degmada Shibis gurigan iibka marka wuxuu ku yaalaa dhanka degmada Shibis marka isgoyska Afarta Jardiino joogtid ee aad soo aadid dhanka iyo isgoyska Sanca jidka koobaad ayaa ku leexanaysaa dhankaaga midig wadada uu saaran yahay waa wada weyn dhinacan waxay aadaa Maanaboolyo dhinaca kalena waxay aadaa Suuq Bacaad iyo wadada masaajidka Xaaji Iidow walaalayaal soo dhawaada guriga tilmaantiisa inaad si fiican u fahanteen ayaan rajeynayaa yaan idinka iloobin laamiga waxaa ka xigo hal boos oo kali waxa uu ka yahay booska labaad walaalayaal haddii aan ka hadlo dhankaas iyo cabirka oo ku fadhiyo gurigan iibka walaalayaal gurigan wuxuu ku fadhiyaa cabir 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe hadba sida u taqaanid wajiga hore waxa uu yahay 10 mitir gadaal ama dhererkan wuxuu u yahay 20 mitir waa cabir waasac guriyaha xaafadana sidaas ayay u badan yihiin markiisa wuxuu ahaa boos finti waa la kala gooyay gurigan ayaa ka soo horjeeda gurigan dabaqa waxa filayaa in nus uu yahay kan kale ka soo horjeedana waa sidoo kale marka cabirada badana fintiga la isku wada dhiso dadka inta kala gooyaan ayaa waxay ka dhigaan laba nus gurigaas dabaqa laamiga uu saaran yahay kan kale ee dabaqan weyn toos ayuu gurigu ugu dhagan yahay asagana laamiga ayuu saaran yahay laakiin waa cabir weyn marka walaalayaal soo dhawaada ka faa'iideysta haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo walaalayaal gurigani waxa lagu rabaa 180,000 oo doolarka Mareykanka oo macal dalaal iyo heshiis waxa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhamaado qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala balse waa dareemi kartaan qiimaha waa macquul si weyn ay ugu qalmaa maxaa yeelay waa guri laamiga ku dhow laamiga hal boos ayaa ka xigo waa laamiga
wadnaha sidoo kale isgoyska Afar Jardiino ayuu u dhow yahay oo laamiga suuq bacaad hadii la dhahane waxaa ka xigo sidoo kale guryo tirsan 2 boos mase 3 boos kama badna walaalayaal soo dhawaada walaalayaal guryaha iyo dhulalka qiimahooda mar walba waxaa laga fiiriyaa oo ugu muhiimsan meesha ay ku yaalaan jidadkooda sida ay yihiin gurigan waa aragtaan wadadiisa intee la eg tahay wadadaas waasac ah ayuu saaran yahay walaalayaal aad kugu sii daro waa bari ujeed wuxuu u jeedaa dhanka bari oo ah meesha loogu jecel yahay inay guryaha u jeestaan galbihi oo kale waxa uu yeelanayaa hoos aad u fiican oo hortiisa lagu hirgeli karo hadda muuqaalka waxaa duubaynaa xilli galab ah waa aragtaan guriga hortiisa dhan sida ay hoos ay u tahay walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka wadooyinka iyo jidadka uu haysto gurigan iibka ah waa hal jidle waxaa hormara hal wado oo weyn oo laamiga toos ugu dhacaysa waa hal jidle bari ujeed ah walaalayaal haddii aan u gudbo xagga dukumiintiga iyo sharciga gurigan iibka ah waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran kaas oo ah rasiid iyo safarloog Maxamed Siyaad Barre ah original ah walaalayaal sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhameystiran yihiin haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan dukumiintiga kuu geyno nootayadii aad dalbatid si lagaaga hubiyo saxaanshaha dukumiintiga insha Allah tacaala walaalayaal haddii aan ka hadlo waxyaabaha idinka anfici karo waliba si kooban gurigan wuxuu idinka anfici karaa deegaan waa meel deegaan ku habboon oo istiraatiiji ah dhammaan adeegyada asaasiga ah laga heli karo suuqyo waaweyn u dhow walaalayaal midda labaad idinka anfici karo waa maalgashi maxaa yeelay waa dhul laamiga u dhow oo aad ugu dhow waxaa ka sameyn kartaa guryo isteedyo ah oo apartments loo kireeyo midda saddexaad walaalayaal idinka anfici karo waa in sidiisa aad ku kireysataan ama guri fillo kale laga dhiso oo la kireeyo oo bishii lacag idinka soo gasho marka soo dhawaada ka faa'iideysta waa fursad qaali ah walaalayaal haddii aad guri ama dhul beec ah ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidan oo kale ayaan idinku beec geenaynaa insha Allah tacaala sidoo kale haddii aad dhul ama guri uga baahan tihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira waa idin heleynaa insha Allah tacaala guryaha iyo dhulalka aan soo gelino waa wax kooban kuwa kale aan hayno ayaa aad uga badan ama beeca ah marka nala soo xiriira waan idin gadaynaa insha Allah tacaala ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala facebookna follow inaga soo dhaha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.